بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. weli waxaan ku jirnaa siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam. waxaanu maraynaa sanadkii sagaalaad ee hijrada, sanadkii loo yaqaano sanadkii wafuuddu nabigu u yimaadeen oo carabtu islaamaysay. isla sanadka ayuu go-aansaday nabigu calayhi salaatu wasalaam markan inuu duulaan adag ku qaado roomaankii oo iyaga la filayay qudhoodu, nimanka bisantiya loo yaqaan oo roomaanka bari ah, inay dhulka jasiira carab soo weeraraan oo muslimiinta iyo quwadda islaamka soo kacaysa meesheeda ku damiyaan bay rabeen oo ku baabiyaan. maxaa yeele waxaa soo gaaraysa xogta ah guulaha nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo midowda carabta oo ku midoobaysa kelimatu tawxiid. iyagoo awal kala firirsanaa haddana mushrikiin ahaa bay muminiin noqdeen, hal hoggaan bay raaceen. iyagoo muslimiina nabi maxamed baa hogaaminaya calayhi salaatu wasalaam. quwadda carabtu markay soo baxdo dowladaha dariska way baqayaan. marka barnaamijkooda wuxuu ahaa roomaanku inay ka takhalusaan boqorkii hiriqle inuu meeshooda ku baabi'iyo ayuu ugu talagalay, laakiin uma suurtoobin. muslimiintu aada bay shaki uga qabeen soo duulimidda roomaanka. nebigu marka isagaaba diyaargaroobay, weliba ma qarin, wuxuu yidhi waxaan ku duulayaa dowladda roomaanka bisantiya loo yaqaan tabuuk, sham baan u socdaa, hala diyaargaroobo. ilaahna qur-aan buu soo dejiyay dadka uu ku boorinayo dagaalka, oo alla yihi infiruu khifaafan wa hiqaalan wajaahiduu biamwaalikum wa anfusikum fii sabiili illaah. baxa oo jihaadka aada, adinkoo fudud iyo adinkoo culusba, oo lagu fasiro adinkoo dhalinyara iyo adinkoo dad waaweynaba socda, ilaahay dartii u dagaalama. ilaahay meel kale wuxuu yidhi nebiga u hiiliya, ilaa tansuruu, haddaad u hiilin weydaan nebiga faqad nasarahu llahu, ilaahay baa u hiiliyey, horay hadda ka hor ugu hiiliyey. id akhrajahu aladiina kafaruu thaaniya ithnayni id humaa fi lgaar, markay soo cayriyeen kuwii gaalada ahaa magaalada ay ka soo saareen, laba midkood markuu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam, markii oo godka ku jiray, id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan ina allaha macana, markii uu saaxiibkii ku lahaa waa abubakare, laa taxzan ina allaha macana, ha murugoonin, ilaahay baa nala jira. faanzla allahu sakiinatahu calayhi waayadahu bijunuudin lam tarawha wajacala kalimata aladiina kafaruu sufla wakalimatu llahi hiya alculya wallahu casiizun xakiim. ilaahay wuxuu ka yeelay kelimadii ujeedadii hadafkii gaalada mid hooseeya, kelimadii ilaahay oo nebigu inuu badbaado towxiidku sare marana mid koreysuu ka yeelay subxaanahu watacaala. baxaba alla amray, nebiguna si cad buu u sheegay meeshuu ku duulayo, maba qarinba. meesha ugu yaraan 1700 oo kilomitir weye marka madiino laga baxo. socodka lasii soconayaay waa bil 30 beri waayo. marka nebigu wuxuu yihi qofaan gaadiid wadan yuu iraacin. dad badan baa marka calayhi salaatu wasalaam u yimid oo ka codsanaya gaadiid inuu u helo. marka saxaabada kuwooda dhaqaalaha leh sida cuthmaan ibnu cafaan iyo saxaabiga la yihahdo cabdiraxmaan ibnu cawf iyo ayaa dhaqaalo badan bixiyey. bilmathal cuthmaan ibnu cafaan wuxuu bixiyey 300 oo neef oo geela. 100 mar buu bixiyey, 100 kale ku daray, 100 kale ku daray. weliba neef walba waa gaadiid ahaan baa loo wadanaya. neef walbana waxaa saaran sahaydii jidka lagu cuni lahaa iyo wixii neefka lagu rareeyey, yani kabadii iyo waxyaabihii neefka laga xijinayay, wax walba iyo xarigiisi iyo hogaankiisi iyo koorihiis waa u dhamaystiran. ilaa nebigu uu yihi calayhi salaatu wasalaam maa dara bacda alyowm, yani cuthmaan maanta kadib wixii uu sameeyey waxba u dhibi maayaan. maa dara cuthmaan maa camila bacda alyowm, oo kama qaala calayhi salaatu wasalaam. waxaa kaloo 40 wiqiyadood oo dahaba keenay cabdiraxmaan ibnu cawf. munaafiqiintii waa dhooban yihiin, marka waxay yidhaahdeen carabtii baa loo bartay, qabiiladii carabta lagu duulduuli jiray. markaas hadda waxaa la aadayaa dowladdii weyneyd oo kumaankum sano soo jirtay oo 100,000 oo ciidamaha heli kartay ayaa maanta la aadaya. bal waxa kusoo dhici doonaa aragno. qoladan magaalada marka dadka ku jira ayay dadkiiba warku nuhunuhu bay ku wadaan, hunuhunu iyo ka horkeenid nebigay ka horkeenaya calayhi salaatu wasalaam. arrintaasu marka munaafiqiintu hawshooda way wateen oo waliba dadka way baqdin gelinayeen. iyaguna markay isu yimaadaan waxay lahaayeen kuleel baa, xilli kulul baa la joogaa, xilligaana kale xilli la baxa ma ahan,
waa degdegay maaragtay khalad buu nebigu sameynaya calayhi salaatu wasalaam guryihiina iska jooga dadka saasay ku lahaayeen marka munaafiqiintii ayagu dadaalkooda ma joojin oo ay ku hor istaagayaan dadku inay nebiga raacaan laakiin mu'miniintu waa soo diyaar garoobeen waxaa marka halkaa mulaaxadaan gelinaya qiso muhiima wiil dhallinyaraha Cumayr ibnu Sacad la oran jiray ansaari ahaa iyo oday hooyadii qabay oo la oran jiray Julaas ibnu Suwayd ibnu Samit oo asna dadkii reer Madiina ahaa odag waa munaafiq buu ahaa odayaasha munaafiqiinta waliba dhaqaale fiicanna waa haystay marka wiilkan wuxuu arkaya dadkii wada diyaar garoobaya oo u diyaar garoobaya jihaad weyn oo nabiga la raacayo calayhi salaatu wasalaam oo xataa waxaa dhacaysa qofka qaarkii dadka qaarkood inta dhaqaale waayaan ay seefa ku gataan firaashkiisa inuu suuqa geeyo inuu iibiyo oo uu seef kusoo iibsado ama qaanse kusoo iibsado waa la diyaar garoobayay nabiguna wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam yuusan raacin qof aan awood u lahayn gaadiid qof lugeynaya meeshaan laguma raaci karo yir xilli kululna way ahayd safarkuna waa dheeryahay marka qaar baa xataa u yimid mu'miniina oo diyaar u ahaa jihaadka laakiin aan gaadiid haysan kuwaasna wuxuu yiri nabigu idiima heli karo waxaan idinku xambaaro gaadiid idiima heli karo allah u cudur daaray kuwaas oo wuxuu yiri walaa cala aladiina idaa maa atowka litaxmilahum qulta laa ajidu maa axmilukum calayhi tawallow waacyunuhum tafiidu min addamci xasanan anlaa yajidu maa yunfiquun yacni eed ma laha kuwii kuu yimid ee ku yidhi gaadiid aad nagu xambaartana si oo tiri waxba gaadiida idiima heli karo oo sii jeestay iyagoo ooyaya oo ilini ka qubanayso indhahoodu iyagoo ka murugaysan inaanay heli karin maal maanta ay bixiyaan ama ay ku jihaatagaan oo gaadiid aan heli karin inama asabiilu cala aladiina yasta'dinuunaka wahum agniyaa raduu bian yakunuu maca alkhawaalifi watabaca allahu calaa quluubihim fahum laa yaclamuun alla wuxuu yihi eeddu ama wadada eedda ah waxaa qaadanaya xambaaraya kuwa awoodda leh oo haddana idanka ku weydiisanaya akhniyaa maal bay leeyihiin waxayna raalli ka noqdeen inay dadka haray la joogaan dumarka iyo dadka curyaamiinta iyo dadka jirani inay la haraan allahna qalbigooda daboolay baa layidhi iyagu arrintaa ma oga istakfir lahum aw laa tastakfir lahum in tastakfir lahum 70 maratan falan yakfir allahu lahum ama ilaahay dembi dhaaf u weydiiye ama ha u weydiin haddaad ilaahay 70 goor dembi dhaaf u weydiiso alla ma cafinayo marka arrintaas dadkii waa kacdoon bay bilaabeen ninkii mu'mina wuxuu isu diyaariyay nabigeenu raaca calayhi salaatu wasalaam julaas marka dhaqdhaqaaqba ma leh odayga hantiilana waa yahay asaga iyo odayaal kale meel balabala isaga shiraya waxba wiilkii yaraa wuu arkaa wiilka hooyadii buu qabaa odaguna wuu soo korayay wiilka laakiin wiilkan iimaanka ka dhab ah nabigu si dhaba u raacay calayhi salaatu wasalaam Cumayr ibnu Sacad maalintii dambe wuxuu yiri asagoo odayaashii la fadhiya wuxuu yiri adeer dadkii waa diyaar garoobeen odagu wuxuu heli karaa fardo iyo gaadiid iyo geel iyo seefo iyo qalab dagaal oo dhan annagu wax dhaqdhaqaaqaba ma lehina maan diyaar garowna oon baxan oon nabiga raacna buu yiri aan diyaar garowna odaygii erey wuxuu ku hadlay wiilkii yarkaa maskaxdiisii wareerisay laakiin iimaankiisu ilaahay subxaanahu watacaala ku ilaaliyey odayaal kaloo munaafiqiinoo la fadhiyaa marka julaas wuxuu yidhi low kaana muxamed saadiqan fima yaddaciihi min annubuwa haddii muxamed ay run tahay waxa uu sheeganayo nebinimo ah haddayba dhab tahayba fa naxnu asharu min alxamiir dameeraha annaga ka liidanu yidhi marka waa hadal jees jees ah maa yaddaciihi min annubuwa nebinimada uu sheeganayo yacni nebiba uma yaqaan sala allahu calayhi wasalam wiilkii yaraa waa naxay ma ka filayn adeerkiisa muslim buu moodayey dadkii nebiga baycada la galay buu ku jiray odayaashii kaleu fiiriyey nin dhaqaaqaya mgowsawe nin walba aamusan yahay nin kale la fikriyiinba wuxuu yidhi haddii aan aamuso adeer arrintan aad sheegtay aan ka aamuso waxaa noqonayaa kuwa ilaah iyo rasuulkiisa khiyaamay iyo diinta islaamka haddii aan ku sheegana adigaa fadeexoobaya laakiin u diyaar garow inaan nebiga u sheegaya arrintan calayhi salaatu wasalaam markhaati kalena yar kuma haysto si u soo ordayay buu nebigu u yimid calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi rasuulkii allah odaygii julaasaha saasuu yidhi waa hadal weyn oo kufriga
nabigu ha loo yeero yiri Julaas ibn Suwayd odayaasha macruufka reer Madiina la yaqaano ku jiray asaga iyo odayaasha kale isla yimid maxay taabir maqaalada uu soo sheegay Umayr oo aad ku hadashay markaas rasuulka Allah waa igu been abuurtay yiri waa been buu yiri Ilaahay baan ku dhaaranay haddana hortaada ku dhaaranaya waxa saxba kama jiraan markaas odayaasha kale waxay yiraahdaan anaguna goob joog baan waa wiil yar oo caaqaba yaani aan caasi ah oo qofkii xurmada uu ku lahaa oo waalidkii ahaa oo saa uu dhaqmay waa been abuur ayuuna yiraahdeen wiilkii yara waa oo rabbigiisu tuugay Allah buu bariyo subhanahu wa ta'ala اللهم أنزل على نبيك صدق ما أقول إلى وحن شيء النبي كوسو دجي يعني وح رمينية وحن شيء اللي بقى قوان زكيرة نبي مركب غشيدي وقبتي الصحابة دي كلنا وافديان ومساجد كوي وضياشي منافقين تانا وافديان قرآن بابرتي بكوسو دجي سبحان الله إلهي بسو جوابي يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا الله وحير سبحانه وتعالى وحيكون أرنا يعني أنا وحب أرن وحينكوها لأن كلمة كفرية وين قالوا بين إيمان كودي كذب يعني إسلام ما كذب إيمان ما إسلام ما كذب قالوا بين بلير الله فرصة بوسية فإن يتوبوا يكو خيرا لهم أنت وحي قدقى مركا ويلكي راسك وحوقيا إلهي وحن خير يحقها المشيغي لكن أضياشي إنه هذا سأوريغني وحي وكبا غيان بإن لي يرهدوا بين اليال ظالمين وخائنين قرتها لقشر الله وحي فإن يتوبوا يكو خيرا لهم إن توبت كينان با أدن وجرتا خير وجرا بالير odaygii waa soo booday lugta nabigu ku dhigay calayhi salaatu wasalaam wixii rasuulkii Allah atuub waan toobad keenaya kaana saadiqan wa kuntu kaadiban wiilka run buu sheegay anna been baan sheegay hadda lagama baahna rabbil caalamiin baa soo jawaabay laakiin odaygii maxaa yaqiin u noqotay inuu yahay nabi ilaahay oo xaq ah oo wuxuu qarinayay hadda loo soo sheegay sallallahu alayhi wasallam nabi wiilkii yaraabo ayuu xaqiisa eegay iyo jaleecay dhegtiisu qabtay marka dhegtaada amaanadii way gudatay waxay maqashay way sheegtay rabbigeedna wuu u rumeeyay biir yarku markii hore murugu la ilmeynaya hadda farxad buu la ilmeynaya wajigiisa waa hilaacaya hadda Umayr ibn Sa'ad radiyallahu anhu odagiina waa toobadkeena bal waxa la yiraahdaa islaamkiisu waa fiicnaaday maadaama uu yaqiin helay inuu yahay rasuul ilaahay oo xaq ah صلى الله عليه وسلم wuxuu oran jiray waagi wixii ka dambeeyay wiilka yarka uu jeclaa wiilkii cadaabka iga badbaadiyay buu oran jiray anoo nifaaq iyo balaayo iga buuxdo wiilkii soo dacweeyay dadna sababtiisa Ilaahay ku soo jawaabay Julaas nin fiican buu noqday jihaadka sidii baa lagu aaday nabigu calayhi salaatu wasalaam iyo muslimiintii waa dhaqaaqeen dad fiicnaa oo haray baa jira oo saddex qof oo gadaal laga sheegay aan ka sheegi doono insha Allah taala qisada qaybteeda dambe 30,000 oo ciidamo markan uu nabigu la dhaqaaqay salawaatullaahi wa salaamu alayhi dhaqaalihii la soo aruurinayay sida Abu Bakar Uthman Umar Abdurrahman ibn Auf dadna maal badan bay keeneen dad aan waxba badan haysanna waxay keenayeen wax yaran waxba aan ahayn laakiin hal saac oo timir iyo 2 saac oo timir iyo suus timir ay keenayeen Allah wuxuu ku eedeeyay munaafiqiintu waxay yiraahdeen kuwan bal waxaan Ilaahay muxuu ku falayaa bay dheh waxay cambaaraynayaan kuwii waxa yar la baxay ee tabartooda iyo juhdigooda la baxay Ilaahay dartii u la baxay kuwii waxa badan ka la baxayna waxay dhaheen kuwan waa istusooxooda waa laga sheego kii maalka badan la baxayna waa eedeeyeen kii waxa yar la baxayna waxay yiraahdeen waxaan muxuu Ilaahay ku falayaa ma gurigiisa muxuu saga haysan waa Allah ayaga u soo jawaabay munaafiqiinta الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم بألير سبحان الله كو عمبارين يا مؤمنين تكو مطوعين تحولها بدن لبحية يكو انت أودو ذا يقولون لبحية كو لبدا عمبارين يا
oo ku jeesjeesaya ilaahay baa ayagana ku jeesjeesi doona yani jahannamo wey cadaabka jahannam gudaheeda lagu ihaaneynaya cadaab xanuun badanna way leeyihiin munaafiqiintii kale magaalada ku jirtana maxay dhaheen alla wuxuu yihi farixa almukhallafuuna bimaqcadihim khilaafa rasuuli illahi wakarihuu an yujaahiduu biamwaalihim waanfusihim fi sabiili illah waqaaluu laa tanfiruu fi lxar qul naaru jahannama ashadu xaran low kaanuu yafqahuun falyadxakuu qaliila walyabkuu kahiira jazaan bima kaanuu yaksibuun subxaana allah way ku farxeen ba alla yihi kuwa haray ee nabiga ka haray meesha ay fadhiyaan bay u bogeen iyagoo isla quman weliba dadkii waxay ku yidhaahdeen laa tanfiru fi lxar ha bixina kulaylkan kulul ha ku bixina u sheeg baa la yihi qul naaru jahannama ashadu xaran low kaanuu yafqahuun naarta jahanamaan ka kulayl badan hadday garanayaan og yihiin falyadxakuu qaliila walyabkuu kahiira adduunka wax yar ha ku qosqoslaan wax badan bay jahanamo ku dhex ooyi doonaan jazaan bima kaanuu yaksibuun taasoo abaalmarin ah waxay kasbadeen darteed munaafiqiinta musiibo waay nifaaq waa balo dad badanoo khayr lagu malaynayay baa nifaaqooda soo baxay markaan oo kale maxaa yeele ilahay tamxiis buu keenaa imtixaan uu ku kala saarayo muslimiinta oo ciriirigaas dadna nifaaqooda soo baxaya dadna iimaankoodii iyo macdantooda rasmigaada soo baxaysa mid kaloo munaafiqoo caan oo weynaabaa nebigu u yimid odayaasha ka mid ah waxaa la ohan jiray aljad ibnu qays mufasiriinta qaarna waxay yidhahdeen ma ahna wuxuu ahaa cabdullaahi ibnu ubaya ibnu saluul wuxuu yidhi aniga fitnan ku qaba haweenka caddaanka kuwan bani asfar waxay u yaqaanaan romaanka dumarkooda haddaan arko oo ku fidnoobaya rasuulka allo aniga hay wadin buu yidhi aan meeshii tago kuwaasaan ku fidnoobaya ee iska kay aan iska haro nebigu yidhi ninkii yani idan sheegtay iska har budhi lahaa calayhi salaatu wasalaam qofkii idan dalbaba u idmeeyey nina lama khasbayo meeshaan waa cibaado dadkaana maalkooda iyo naftooda iyo dhaqaalahooda iyagaa la baxaya say ilaahay janno uga helaan subxaanahu wa tacaala alla wuxuu ka warramay munaafiqiintii idanka dalbanayey alla wuxuu yidhi yani wa minhum man yaquulu idan lii walaa taftinii qaar waxaa kamid iidanku dhahayaa ka mida munaafiqiinta oo ha igu fidneynin dumarkaas iyo masiibadaas wa minhum man yaquulu idan lii walaa taftinii alaa fi lfitnati saqatuu wa ina jahannama lamuxiiطat bilkaafiriin ba alla yidhi waxaa ka mida kuwa oranaya yani hay fidneynin nebiyow sala allahu alayh wasalam ee aniga ii idan aan iska jooge haddayba fidno ku dhaceen ba alla yidhi meel kale allah waa ka waran wuxuu yihi low kaana safaran qaasidan hadduu yahay safarku mid gaaban low kaana caradan qariiba wasafaran qaasidan latabacuuka walaakin bacudat calayhim shuqa wasayaxlifuuna biاllahi low istaطacna lakharajna macakum yuhlikuuna anfusahum wallahu yaclamu inahum lakaadibuun cafa allahu canka lima adinta lahum xataa yatabayana laka aladiina sadaquu wataclama alkaadibiin yani allah wuxuu yihi safarku hadduu dhowaan lahaa low kaana caradan qariiban meeshaan la yihi halkaan la aaday hadday dhowaan lahayd wa safaran qaasidan iyo safar gaaban oo ahaan lahaa latabacuuka ku raaci lahaayeen dhaqaalo badan haddii laga helaya meesha oo haniime ah carad fiican laga helayo walaakin bacudat calayhim shuqa laakiin safarka masaafadaa ku dheeraatay masaafada oo dheer iyo cadowga loo socdo oo xoog badan iyo xilligii lagu jiro oo kulul saddex arrimood buu isku darsaday dagaalka tabuuk masaafada oo dheer 1700 oo kilomitir ugu yaraan cadowga loo socdo ah cadowga dowladda adduunka ugu xoog weyneed waqtigaas oo romaanka ah labo xilliga lagu jiro oo xilli adag ah oo xilli kulul ah ilaahay wuxuu yidhi cafa allahu canka ilaahay ha ku cafiye nebiyow ilaahay waa ku cafiyey lima adinta lahu maxaad ugu idantay yani xataa yatabayana laka ilaa ay ku kala cadaadaan adiga kuwa runta sheegaya beenaalayaasha ninka muminka runta sheegaya ma idan weydiisanayo naftiisa iyo maalkiisa ilahay dartiina u huro dagaalkaas iyo boorinta diyaargarowgaasa la galay dagaalkii tabuuk nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa agtiisa kusoo diyaargaroobay 30,000 oo muslimiin ah waana ciidankii ugu fara badnaa oo nebigu duulaan u kaxaysto taariikhda islaamka sala allahu calayhi wasalam ciidamadii ka horeeyey waxay ahaan ciidankii xunayn oo 12,000 buu watay laakiin kuwan waa 30,000 sala allahu calayhi wasalam nabiga raacay
ودقاق صلوات الله وسلامه عليه نبي محمد وحو آدي شام دقالكي شام قالدي هرقلنا وسودي القروبي ميل تبوك ودوب عيدا بدن كياني ورئيسته حق بو ديري إن من جواسيسو صادر صدي وحو أقادي نبينا صدقاقي صلى الله عليه وسلم وبقي مرك محايل آد بالنبي وبقيين قالدو إلهي وانا تكتل ما رسول كان الشيخ عليه الصلاة والسلام شنت أرمود النبي الله قلت هاجرين كم تهي عدو يسمال بالله صعده إنه وقبقه رعب على كرده بالمال الله صعده عدو يسنه وقبقه عدو قد شوقه بقان مركب بقدين حوق لا قشنيكي وعرري مقالة بيت المقدس بتجاه رجلة إذا مو ماشي وقتها إذا مدينة وابقين وابنيين تبوك مدبل أيو سعود عليه الصلاة والسلام وقبائل فربضان عرب السيد أحمري عيدا جرار وتا صعود كعدار وحال الإرادة نبي أنتو سعود عليه الصلاة والسلام من صحابي أيو كدبتو كذا إذا عظيم أنا ونكاس وأكوما وعبد الرحمن بن عوف يعني عيدا مدو وحيو سعودان قيب دحدا قيب هورا قيب دنبه وصدن كنا عيدا ما مركا قلاص صلاة سيحرتي أي نبي سو قاري عبد الرحمن بن عوف وتجنيه سير الروايات سيرة القرآن صفكي وصايق صلى الله عليه وسلم مركز صلاة لقى بحبا لي عبد الرحمن بن عوف والنبي قدت كل حجره النبي في نحي مركز وحال لي أحسن أنت وناجسي بالير يعني ما شاء الله وفضيلة ولي هي صحابي قس النبي تبوك بو صلى الله عليه وسلم مقالة من مدينة وحا مسؤول لوغا دغا هذا علي بن ابي طالب halka munaafiqiintu warbay soo galiyeen waxay yiraahdeen magaalada wuxuu uga tagay ma taqaana cali ha wiilkan waa in adeerkiis gabadhiisana waa qaba dagaalkaas inuu ku soo dhinta laga baqaya dagaal weyn baa la aadaya oo rajabeelo in la soo noqdo aan la filayn marka uu reebtay asagu reebay bideh warkii munaafiqiintu cali maqlay faras buu qaatay nabiga ka daba tagay sallallahu alayhi wasallam ciidankii sii socda ayuu nabiga ka daba tagay markaas yiri maxaa u soo baxday rasuulka allah munaafiqiinta saasay lahaayeen buu yiri warkooda ka baxay noqo soo waxaad ii joogtaa meeshii nabi haaruun uu u joogay nabi muuse oo uu ku yiri khulufna fi qawmi qowmkayga iga dambeeya maamul hawshooda غير أنه لا نبي بعدي ما لكن نبي أنا إيجاد بيا مجرى هذا هارون نبي وهذا نبي متى دوا سيدي بكسر لابتي رضي الله عنه علي بن أبي طالب ومامل كي مقالة ذا استقل ودي بي مسلمين توابحين نين مركب مغنى بجرى لورنجري أبا خيثمة ونين جهاد كجعل والنبي كجعل عليه الصلاة والسلام سفر بكم مغنى مقالة يميت مقالة عدل faraskiis asagoo saaran uu labadiisa guri soo hor istaagay xaasaskiis geedaha marka geedihii timirta xilliga kulayluhu markaas hoos kuwa qabooyaha aad baa loo danaynaya mid walba intee meeshii rusheysay oo gogol u dhigtay iyo cabitaan iyo cunto iyo wax walba u diyaaris Abaa Khaythama radiyallahu anhu markaas weydiiyey dadkii waxaa la yidhi rasuulka ilaahi waa baxay dhowr cisho waa sii maqan yahay sallallahu alayhi wasallam jihaad buu aaday wallaahi afka ma saaro yidhi cuntadan هذا السيسان من السود دقيقه إلا النبي كتب تقول صحيح إيسو سارة فرسك إيسو سارة فرده قبله مركب أورهرين صحيح السيان ماشي وكسر دقائق أبا خيثمة نبي أو تبوك مالك دو جوجو فردي إذا مدي هر فردي عليه الصلاة والسلام سحارة ويدلك قلالا أيام الفق وحكسوا مغضي ننفرس إريه مركب مالفو كسوا مغضنا قرقر أو كلوه كان يا بالاش دلك دقنا يوكله markaas ay weydiiyay qofkaas soo socda nabiga saas uu fiiriyay kun Abaa Khaythama biir oo malaynaya nabiga Abaa Khaythama inuu imanayo oo san harayn markuu soo dhawaaday rasuulka allah wallahi wa Abaa Khaythama radiyallahu anhu waa yimid wuxuu kaloo nabiga ka dadkii ka dhax weydiiyay aawe biir Ka'b ibn Malik al-Ansari waa ragii nabiga gabayada ku difaaci jiray saddexdii nin gabayaaga nabiga shucaraa rasuul loo yaqaan weeye ayuu kamid yahay asaga iyo Hasan ibn Thabit iyo ninkii hore u shahiiday ibn Rawaha oo dagaalkii Muuta ku shahiiday Abdullah ibn Rawaha marka kacnin baa wuxuu yiri Ka'b ibn Malik macawis cusub uu soo helay maalin dhaweeyo gatay waa xaragadiisii uu ka bixiyay rasuulka Allah si uu fiirfiirinay magaaladii ku jiray uu ka soo tagay oo ka soo tagi waay yani adduunyada u macaanaatay waay
Macaad ibnu Jabal baa u jawaabay oo ag fadhiyey wuxuu yidhi bi'sa maa qult yacni wax xun baad ku hadashay rasuulka allah wallahi kuma ogin buu yidhi ilaa khayr mooye wax kale kuma ogin nabigu waa aamusay marka calayhi salaatu wasalaam ha loo diyaar garay baa la yidhi marka dagaalkii waa lasii dhaqaaqay magaaladii Tabuuk la yiraahdo markii la gaaray oo bil nabigu uu sii socday ayay gaalada kala carareen magaaladii waa baneeyeen markay maqleen nabigii baa soo dhawaaday calayhi salaatu wasalaam uu soo galay nabi maxamed magaaladii oo la kala cararay buu yimid saxaabadii qaar ka mid a waxaa la sheegaa cunto bisil bay heleen cuntadii bislayd bay qaar cunayeen nabigu waa fiirinaya sala allahu calayhi wasalama waxaa la yidhaha marka cunto bisil haddii la cuno oo haniimada lasoo kulminayo iyada shardi kuma aha maxaa yeele nabigu kama qaban kumana eedeyn calayhi salaatu wasalaam wax badan bay meeshii cunto heleen waa ka cuneen waa degeen meeshii bay degeen 20 cisho ayuu joogay nabigu calayhi salaatu wasalaam magaaladii Tabuuk tuulooyinkii u dhowaa nasaaradii joogtay baadariyaashii baa u yimid mid Yoxana la yiraahdo ugu caansanaa wuu u yimid wuxuu yidhi maxamed oo anaga kutubtii hore aan kugu haynaa oo injiil iyo tawraa laakiin weli ma go-aansan buu yidhi inaan islaamo mid Yoxana la yiraahdo waxaanse ogolahay inaan jizye bixiyo ood ammaan ii qorto waraaq aan ammaanka waxaan rumaysnaha muslimiintan inay qabsan doonaan Shaam iyo Furusba marka nabigu waraaq ammaan u qoray laakiin waa nasiib daro nabigu xaq uu og yahay buu leeyahay hadda inaan ku raaco diyaar uma laakiin kutubtii hore aan kugu arag ninkii alla hanuun la maaga hanuunay ninka ilaahay hanuun u qadarina ma hanuunayo 20 cisho ayuu joogay nabigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi Tabuuk kadib ayuu soo laabtay intuu soo laaban ayuu ciidamo diray Khalid ibn Walid oo kale ayuu diray oo waxa la diray Sa'd ibn Abi Waqqas iyo Abu Ubayda iyo koox 500 ama 1000 ama 2000 baa loo dhiibay tuulooyinka iyo degmooyinka la aadaya nabiguna magaalada Tabuuk u fariistay calayhi salaatu wasalaam waa meeshii waxa la yiraahdaa masaafadii ugu dheerayd ee nabigu u lugeeyo sallallahu calayhi wasallam geeridiisu waa soo dhowda markaan 62 sano ayuu jiraa baa la yiraahdaa sallallahu calayhi wasallam waxay noo soo joogaysaa marka nabiga oo Tabuuk fadhiya oo gaaladii nasaaradii dhulka ka dhaweyd iyo carabtii qasaasinada carab badan baa u timid dad baa meesha ku islaamay markay arkeen awoodda nahaa'ilka oo dad carbeed oo nasaaradii cayrsanaya oo nabigooda hogaaminaya uu wato Muhammad calayhi salaatu wasalaam ayay qaar badan islaameen qaarna waa ka shakiyeen kuwa ka shakiyeen gadaalba marka dambe islaami doonaan waxay noo joogaysaa nabiga oo Tabuuk jooga oo weli aan soo laaban jasiira العرب oo dhan ay isdiibtay ilaa nin nifaaq qarsanaya mooyee wadaalika fadlullahi yu'tihi man yashaa marka halkaas inoo joogaysaa iyo aayadihii quraanka soo degay oo dagaalka ku saabsanaa iyo ilaahay inuu ka toobad aqbalay nabiga iyo muhaajiriinta iyo ansaartii raacay xilliga saacatul usra loo yaqaanay dagaalkii saacatul usra wajazaakumullahu khayran wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam